السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي وين سلام ملبو joogtaan maanta waxaan rabaa inaan qaybsado insha Allah video intiin soo dhigi doonaa oo codkiisana qayb ka dhigaysa doontiin. Niyar Soomaaliya wuxuu leeyahay quraanka ayaa maaragtay oo tahliishahay ayaa macnaha warqad lagu soo qoray kadibna waa aad qasanaysaa sida shaax oo kale kadibna waa cabaysaa quraanka waliba aayadaha waa kala baxsan yihiin aayadaha jinniga aayadaha maaragtay sixirka waxyaabahaas waa kala saaran yihiin oo leeyahay quraanka yani qayb walbo meesha loogu talagalay waad qasanaysaa hadii sixir aska dareento aayadaha sixirka loogu talagalay gooni iyo helaysaa kuwii isha loogu talagalay waxyaabo noocaas marka fikradda ma xumo fikradda ani way cajab gelisay laakiin su'aasha meesha taagan waxa waaye videogan halkan ay soo dhigi doonaa waad arki daawo doontaan videoga waa video waxa socona adiga hal daqiiqo laba daqiiqo waxa dhameeyay soconaa laakiin fikradda aad u fiican tahay laakiin waxa rabay inuu la wadaago halkay hadii suurtagal tahay in macnaha oo haddii uu maaragtay noo sheegi karo wadankee laga soo saaray mada in Shiina miya Shiina ma noo soo saaray oo saa ognaa wax walba anaga Shiina ana fududeeyay Shiina la tagaa labada qof wax fahansan Shiina soo saaraan soo culimadu waxay diideen kamid saa ognahay Maxamed Rasuulullah iyo Allah la ilaaha illa oo darbiyada lagu dhagsado ma la ogolo because waxay culimadu laba arin buu sheegay waxay tan koowaad waxa la diidaa in macnaha gaaladii oo maartay nijaasta ahay oo gaala ahay inay Nabi Maxamed iyo magaca Allah la ilaaha illa Maxamed Rasuulullah ku qoran tahay boorkaas inay iyaga soo saaraan oo gacantooda ay ku qabtaan oo kale ama ay ku qoraan oo kale waxyaabaha la diiday waxaas waaye qof daahir aan xitaa loo diiday soo qof nijaas oo gaala inuu gacanta ku qabto ma qurux badno soo mushkilada waxa waaye ma wadan islaama soo saaray Sacuudiya soo saaray Imaaraad soo saartay Masar soo saartay oo wadan muslimiin ma soo saaray ko laakiin mada in Shiina ay qoran tahay aad u dhib badan tahay inkastoo isla Shiina hadda islaam waa laga helaa laakiin uma maleena kambaniyada u furanta oo kale iyo inay jiraan in dhici karta ma ku dambeeyo kala doono soo xaqiijiyo wax qurux badan waaye tan kale caleenta soo bandhigto halkii wax wada madow oo sida caleentii oo kale aragnana quraan meel ku qoran ma arkinbo yani inaad quraan meel noo soo saarto oo waarka hadda yani waxyaabo madow isku jirjiro madow TV-ga maartay ku aragtaan waxa la dhahay hada la akhri karin mobilka hada ku aragto quraan meesha u jeedno hadana tusleed oo adhiileedna waa kana quraankii waxay ayadiga meesha u qoran la arki lahaa waxbay aaleed laakiin meesha waxa ku yaalo wax wada mugdi ah loo jeedaa aad looguma jeedo quraan inuu yahay in kale maxaa cadeynaa idana inaan noo soo cadeeyo fiicnaa lahayd tan kale wadayaa soo saaray islaam soo saaray magaala soo saartay inaan noo soo sheegtay oo qurux badnaa lahayd because dad islaam wax la wadaagaysa aslan bulshadeena ma aqaan si u fikiraan war adiga sheega marka gudbinaysid hadda mesela hadda inta baxo ka waran shirkad oo hilibka lo'da aan hindi ka fur ka war ma suurtagelayso wax la market needs jiro waxaan suuq ma looga baahan yahay waxaan wadanka ageenaysi meesha ageenaysid caadadkooda iyo taqaaliidkooda iyo diintooda iyo masaameene dad hindiyan shirkad hilib lo ka fura dad company weyn oo ku qasaar leh qofka gasma loo muunaan waa caabudaan so islaam dad yani wadan islaam shirkad qansiira ka dhax fura dad macquul ma soo wixii waxa la rabaa wixii inay macnaha oo iskeenaad ka soo gudbinaysid waxaan caadadooda iyo diintooda maxay ka qabtaa in dhahdid waa laakiin wixii iska dadka iskala hor keentid dhahdid sheegan waxa waaye quraanka ku qoran quraanka nooca arabtay oo qasanaysa waa cabaysa waxa ka nasanaysa waxyaabo qosolka badan tahliish badan xala aan dhufta calaliyada iyo marka la tufay gaarto يعني كذا لو ogaaday dadkii maadaama wax la bartay iyo in lagu tufo yani hadda culimada qaar markay sameeyay waa afuufa wala afuufa shay mush in aan nufto aan qof walba caliyada ku tufayso because qofkan TB oo qabi kara hergab oo qabi kara cudurada oo yani oo transmission oo caadiga la isku gudbi karo oo aan nufta iyo caliyada soo raaci karto kale hadoo qabo halisa ku jirta maana laakiin hadda culimada xogaa waa la hormaray oo dad bulsho wax la bartaa leeyahay hadda culimada badan quraanka tufs marka arki badana oo haygan meher magaalka wax fahansan ama marka loo sheego waa afuufayaan kaliya
marka whatever wuxuu leeyahay calaliyada waa ka nasanaysiin waxyaabo badan cilado badan oo sheegaya adi marka kuley videogan waa ila dhegeysan doontaan idinkane dhinaceeda ka dhegeysan doontaan marka maxaa laakiin arrimahaas muhiim waxa ka muhiimsan waxa kale sheegaysid in kow quraanku qoran yahay meesha la arki karo oo caleenta iyo weesha wax ku qoran warqada la arki karo kow labo certificate oo caalami ah ma haysta oo lagu kalsoonaan kara xalaal ma tahay waxaan oo yani caleenta lagu qoray macnaha waxa lagu qoray macaleena oo how suurtagal in caleenta lagu qoray miya muse qada lagu qoray maxaa lagu qoray ina ogaan naftirkeeda aad oo muhiim ah leed tan kale muhiim xalaal inay tahay in kale oo dad islaam soo saareen wadada islaam soo saaray oo dad islaam waxaan soo qoreen maan xitaa wadada islaam in midna imaarado kale shirkad ku taalo oo gaalo leedahay ee soo saaray ma saxmaan in dad islaam inay soo saareen shaqaalaha iyo waxaas oo dhan dad islaam inay yihiin oo gacanta quraankan iyo waxaan soo saaray taas idan muhiimtan ugu koowaad waa tan labaad waxaan macaleena ka sameeysan yihiin musaqada ka sameeysan yihiin tan saddexaad in la arki karo quraanka meesha ku qoran yahay wixii dhan markaas la qasan karo macquul maaragtay waxyaabo badan su'aalo meesha laakiin daa wixii bulshada iskala hor imaado adigoo aadan meel loo raac lahayn aad u dhib badan tahay walkay qaaliya maadaama bulshada islaam tahay bulshooyinkan kale iska caadi dad aan gaalada iyo waxyaabo wixii raba loo hoosgeliya wixii la raba loo soo saaro waa iska qaadanaya laakiin anaga islaam ahaan iyo dadka diinta haysto dadka ahlu kitaabka ee maalan marka yeelaan waxaaniti inay meesha ka soconaysa hadaa sheeg camal hindi oo kale daadada waxaan ka furaa maaragtay kuwa weliba oo caabudaan looda agtooda waxaan ka furaa shirkad oo maaragtay hilibka loo soo saarta macquul maahan maaragtay marka wixii inay isqabanaya la rabaa kulli bal aan wada dhageysana hal mar maanta kadib inaad shiiq wacatay oo dhahday shiiqow iimaw tahliil ayaa ii tufaysaay oo u dhammaatay sidoo kale culimmadii ku shaqaysan jiray inay dadka tahliil u tufaan maalin walbo arbacaa ama maalin walbo khamiisa xaafadaha tagi jiray raatibka waxa la yidhaahda ee tahliisha samayn jiray godkoodii ayaa biyo ugu soo galay suufida haddii howsha lagu qaraarin jiray wahaabiyada waxay keeneen tan waxaa rabaa inuu dhaho tan wuxuu dhahay suufiyada iyo dadka quraanka akhri jiray godkooda biyo ugu soo galeen oo raatibku bilo oo maartay mar walba tagi jireen isku meesha waxaan firiima lagu soo siinay halkay horta maskaxda inay aqliga bini'aadanka inuu shaqeeyo la rabaa waxaan waa soo iibsanaysaa soo markaa soo iibinaysid iyo quraan lagu tufaayo isla isku meesha leeyahay inaad khidmad yar bixinaysid labadaba isku meesha way baraada mafahant culumadana waa lacag badan ma qaataan wixii loo garto markaas gacanta ku jiro aan badal la siiyaa inkastoo oo culimo maartay aysan dadka dhibeynin oo maartay wixii gacanta loo geli iska qaadanayaan qof aysan qof ka yeelaysa maalan lacag qaali quraan ku tufaa ama quraanka intaan ku tufaa ma jirto culimada skiimada loo wacdaa wixii raashin oo maartay caloosha ku duceynayso kale loo sameeyo quraac oo kale casho kale habeenkii kadibna gacanta wixii loogu laabi karo oo la haayo gacanta loogu laabo soo isku meesha leeyahay inaad dukaan tagto waxaan lacag soo bixinaysaa firiima lagu soo siinayo marka taas aqligaada xoogaa inuu shaqeeyaa fiicnad waa soo qaadanaysid oo sidii shaahi oo kale koob intaad ku qasatid aad cabaysid waa 114 suuradood ee quraanka kariimka sidoo kale warqadan waxaa ku qoran aayadaha loogu talagalay isha waxaad kaloo helaysaa aayadaha loogu talagalay sixirka waxaad kaloo helaysaa aayadaha loogu talagalay jinka wax walba oo quraan ah oo la isku akhriyo ayaa warqadan lagu soo diyaariyay meel aad kaga baxsanaysid ama aad ka weynaysid ma jirto waxaad tegaysaa meelaha cilaajka kadibna warqadan ayaa soo qaadanaysaa gurigaaga ayaad la imaanaysaa sidii adigoo koob shaah diyaarsanayo kale ayaad biyo kulul ama kuwa qabow qasanaysaa kadibna waad cabaysaa waxay la mid tahay adiga oo cabay suuradaha iyo aayadaha iyo waxyaabaha aa soo sheegay oo dhan halkaas markay marayso culimmada ku qaraaban jiray in ay tahliil tufaan godkoodii biyo ayaa ugu soo galay culimmadii biilka ku raadsan jiray godkooda biyo ayaa ugu soo galay sidoo kale dadkii ka ashi jiray ama waswaaska ka qabay biyaha tahliisha ee dhihi jiray odayaasha tahliisha tufaayo canduuf ayaa kaga fakatay iyo caliyada shiiqa ma cabeen iyagana maanta kadib waxay cabi karaan tahliishan diyaarsan qolo walbaa waa loo daneeyey maanta kadib waxaa u malaynayaa wax la yidhaahdo cilaaj iyo sheekh tahliil tufo waa la weyn doonaa ugu dambeyn adiga halkan daawanaya weliba ku fikirtay warqadahan oo kale inaad soo gadatid kadibna aad cabtid tahliil ahaan wax la yaab leh ahayd insha allah kule idinkana waa dhegeysteen waxaa ka dhigi kara waa ka dhahay marka intaasoo ku ekeenaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu